Assalamu alaikum. Welcome to L4 YouTube channel. Maanta waxaan wada eegaynaa sida aad file ama sawirro aad u gashani lahayd Gmail-kaaga. Okay? Sidii sawirro ama file documentiyo aad u gashani lahayd Gmail-kaaga. Gmail-ka ma laha meel lagu save gareeyo, laakiin waxaad samayn kartaan haddaan idin tusayaa. marka ugu horeysa gmail.com baad galaysaan si aad gmail-kaaga aad u gashaan. Gmail-kiina markaad saa u furateen, haddii aanad gmail lahayn, please videogeenii hore ee sida ugu dhibta yar lee gmail loo samaysto lahaa daawada, kaas ayaa idin tusaya sida loo sameeyo. markaad saa u gashidba marka wuxuu kusoo saarayaa waa inbox-gaaga ama maxaa la dhahaa message-yada xagga ay kusoo galayeen. Therefore waxa kaliya lagaaga baahan yahay inaad samayso waxa weeyaan inaad halkan compass ay ku qoran tahay ama new email baa markaad diraysid oo kale aad taabanaysid ayaa taabanaysaa. Okay? Now marka ruuxa aad u diraysid ayaad usually lagu qoraa halkan. Caadiyan waxaad ku qoraysaa ruuxa aad u diraysid, laakiin hadda maadaama adigu rabtid inaad file-ka adigu save garaysatid waxaad ku qoranaysaa isla email-kaaga. Okay? imika email-kayga caadiga aan isticmaalayaa si aan caadi idinku tuso kii idinku tusayay sida loo sameeyo maahina waa email-kayga caadiga ahaa. Kadib email-kaaga ayaad ku qoranaysaa. Okay? So email-kaaga wuxuu yahay halkan adoo ka eeganaya kaliya adoo xaggan ka eeganaya email-kaaga wuxuu yahay oo halkan yare ama sawir baa ku saaran ama magacaaga ayaa ku saaran. halkan markaas aad taabatid gmail-kaaga hoosta ayuu kugu qornaanayaa. haddaad rabtid inaad intaad ayar sidan u wada dooratid baad iska koobiyeysan kartaa, kadibna intaad xaggan gashid ayaad save ku dhihi kartaa. marka subject-igu waxaad iska tiraahdaaba file ama folder, files-ka dheh. kadib marka waxaad samaynaysaa halkan yare hoosta aad arkaysaan eeda ku xigta ayaa attach file baa ku qoran. tan waxay ku tusaysaa inaad file aad dooranaysid ama aad xaggan rabtid inaad raacaysid. Okay? markaad saa u taabatid iyada markaad saa u taabatid ayaa waxaad samaynaysaa kaliyata inaad geshid meesha uu ku yaallo file-kaagu. Okay? file-kaagu meesha uu ku yaallo ayaad galaysaa. imika tusaale ahaan anigu waxaan rabaa inaan file-kayga kasoo dirsado meesha. Okay? so tusaale ahaan imika haddaan rabo inaan tan dirsado ama aan gashado email-kayga weeyaan waxaan gashanayo si aan ugu kaydsado unan iga halaabin weeyaane. haddaad rabtaan sawirro badanna waad soo gashan kartaan. imika tusaale ahaan haddaad rabtaan inaad sawirro badan gashataanna waad gashan kartaan. waxa kaliya lagaaga baahan yahay inaad meesha ay sawirrada ku yaallaan gashid. Okay? kadibna aad sawirrada mid u doorataa. imika tusaale ahaan haddaad rabtid imika 3 sawir inaad dooratid waxa kaliya lagaaga baahan yahay inaad 3da sawirba mid u dooratid adigoo taabanaya control kadibna sawirrada taabanaya. imika 3 baan taabtay haddaad arkaysaan 4 5 6 7 8 sidaas aad u taaranaysaan. kadibna open meeshan yaala open ay ku qoran tahay markaas aad u taabatid halkan ayuu ku imanayaa sawirradii ama file-kii aad rabtay halkan uu ku imanayaa. waxa kaliya loo baahan yahay marka inaad file-kaaga aad isku diraysid uunad xaggan ka aragtid kadibna send meesha send ay ku qoran tahay kaliya taabanaysaa. isla markaaba wuxuu ku soo galayaa isla meeshaadii. imika waa kuwa sawirradii aan doortay iyo file-kii aan doortayba waa kuwana iyo file-kii aan doortay my cv ay ku qornayd gebigoodu halkan ayay soo wada galeen. tan marka waxay kaa caawinaysaa in unan marnaba kaa halaabin haddii aad iska delete garaysid mooyaane. haddii kale mar kasta halkan ayuu kugu jirayaa file-kaaga documentigaaga sawirro aad rabtid oo qaali ku ood ka baqanaysid inay kaa halaabaan gebi halkan aad ku wada shuban kartaa. waxa kaliya loo baahan yahay inaad halkan compass ka taabatid kadib aad email-kaaga ku qoratid email-kaaga buuxa subject-ga file ama folder ama waxaad doonto ku qoro. kadibna halkan yar calaamadda ha iloobin calaamadan yar attach file leedahay ayaa taabanaysaa.
kadib faylka aad rabtid faylkii aad rabtay ayaad dooranaysaa tusaale ahaan kananba dooranaya haddii aad rabtid iminka ka ugu koreeya ilaa iyo ka ugu hooseeya haddaad rabtid hal mar inaad wada dooratid ka aad ka bilaabaysid intaad dooratid ayaad hoos u dhaadhacaysaa ka ugu dambeeya markaad gaadhid ayaa calaamada shiftiga intaad qabatid ayaa taabanaysaa kadib gebi tii ugu koreysa ilaa iyo ta ugu hooseysa ayuu hal mar ku wada taabanaya kadibna open kaliya aad leedahay open markaad saa u tiraahdo markaa haddii uu faylkaagu yara dheer yahay ama uu badan yahay ama uu culus yahay waqti buu yara qaadan sidan oo kale laakiin haddii kale toos caadiyan ayuu kusoo raacaya imika waa kuwan imika faylalkayga way ii socdaan maadaama ay yara culus yihiin oo 2 megabyte iyo 19 megabyte iyo waxay yihiin ayuu waqti qaadanaya laakiin haddii uunan ahayn yani wax gaaban uu yahay ama aanan saa usii culusayn isla markaaba wuu ku taabanaya hadda waa kan imika halkan ayuu socdaa haddaad aragtaan sidaad u aragtaan halkan ayuu socdaa wuu galay kaas wuu galay kanoo hadda wada haddana kanaa ku xiga kadib kanaa ku xiga xabaduu dambeysana wata kadib markaa halkan ayuu kusoo saaraya ayuu kuleeyahay gebi faylalkaagii aad u baahnayd oo dhan halkan ay ku yaalaan weyaan marka sida aan idiin sheegay waxaad taabanaysaan kan kadibna magacaaga ayaad xagga ku qoraysaa ama gmailka ayaad ku qoraysaa xagga halkanna ciwaankiisii baad ku qoraysaa waxaad dirisid ciwaankiisa kadib halkan ayaad imanaysaa halkan ayaad ka dooranaysaa waxaad rabtay file hadduu yahay hadduu cv-gaaga yahay haddii uu sawiro yahayba waad dooranaysaa kadibna calaamadan yare sendida unbaad taabanaysaa markaad saa u taabatid uu ku soo saa u taabatid isla markaaba halkan ayuu kusoo galayaa kaasoo ku cadaynaysa oo isla markii uu soo galay tan markaa waxay ku leedahay aniga isku daray miidaas ma aragtid adiga inaad isku dirtay yani oo adiga uni scan message la iskugu soo dirtay ama emailka iskugu soo dirtay ku sheegaya markaas aad taabatidna wixii aad dirsatoo dhan ayaa xaggan ku imanaya tanoo iyadana kaa caawinaysa maxay in file kasta document kasta sawir kasta aad rabtid inaad kaydsatid inaad sidan ku kaydsan karto adoo isticmaalaya gmailkaaga weyaan okay aad iyo aad baad u mahadsantihiin maadaama daawateen waxaan haddaad rabtaan inaad video yarkanana aad barataan please comment iyo waxaan hoosta kusoo qora aad iyo aad baad u mahadsantihiin maalin wacan ayaan idin leeyahay bye